معوسليدو laba ma ahane waa hal macawusleyda beesha xawaadle maxay uga duwan yihiin macawusleyda beelaha kale maxaa ku qasbay inay qoriga qaataan maxaa sal u ah guulaha ay gaareen su'aalahan ayaa mudan in la isweydiiyo si guul looga gaaro dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ee al-shabaab haddaba waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno su'aalahaasi aan ku bilownay maxaa ku qasbay macawusleyda beesha xawaadle inay qoriga u qaataan cunug iyo corolaba si ay ula dagaalamaan kooxda argagixisada ee al-shabaab maleeshiyaadka macawusleyda ayaa dhowrkii sano ugu dambeysay dagaal kula jiray ururka al-shabaab bartamaha Soomaaliya balse macawusleyda gobolka Hiiraan ayaa dagaalka waji cusub u yeelay kadib markii 27 bishii May ay kooxda arxanlaawayaasha ee al-shabaab ku dileen nabadoon ka mid ah nabadoonnada beesha xawaadle kaasoo Allah u naxariistay lagu magacaabi jiray nabadoon Cali Macalin Maxamed taasoo ay ku sheegeen in nabadoonku uu yahay murtad nabadoonkaasoo aanan ka mid noqon ergo ama odayaal dhaqameed ka qayb galay doorashooyinka dalka in kooxda argagixisada ee al-shabaab ay dilaan jawaabtooduna isla weynin iyo nalama su'aali kara ay noqoto ayaa keentay in koodii bishii Juun ee beesha uu ka dhashay nabadoonka ay weerar ku qaadaan maxkamadda kooxda al-shabaab ee deegaanka Booco halkaasoo ay ku dileen 20 ka mid ah kooxda argagixisada ee al-shabaab laba bari kadib ayaa kooxda al-shabaab waxa ay jawaab uga dhigeen inay si arxan la'aan ah u dilaan 24 qof oo u kala safraya magaalooyinka Beledweyne iyo Maxaas dadkaasi waxa ka mid ahaa hooyooyin iyo caruur gobadfalka ay kooxda arxanlaawayaasha ee al-shabaab u geysteen gobolka Hiiraan run ahaantii laguma soo koobi karo fiidiyo kooxdan ayaa waxa ay dileen in ka badan 3 nabadoon oo u dhashay beesha xawaadle magaalooyinka Bukur Maxaas Booco waxa ay ka gubeen in ka badan 300 oo guri waxa ay dumiyeen in ka badan 5 ceel oo riiga wax la hargala iyo wax la gala midna male nafta ku raacay waxaan haynaa sidaasay u baaba'een سجاد كان عندنا أنا عرب لهاي من لاب لهاي أنا بقول وكان أكاس وريها تاكنا كذا هذا مالك الجوزان عندي ترى أمر أنت اللي هاد ما شر ربط أمر شوك تاساس أكعدي جارة سويالين مجد سأتنقل وحان ربنا إن أشجنا وينها قسارها ماشان كداعي قسارها سوء وحي نكل يراد ديجان كده جنا وكله ما أوله هو هاي عيلك عيل مطار ولا جوبي ولا بربرشي ودغم بالي نمان إلهي وحو كان نبديت كصوماليا ساسو عيل كاسو كل انتي واحد جري أي كدرين وح الله وحي ديجان وكله غناي نف مجوينه هذا نف يجوين بليه النفط واحد ما جاي يسقط عيل كواينه كوذا جوي ماجي بل سوي جوين ninka la yiraahdo balse waxay gubeen hooysaskii ninka la yiraahdo 86 guri oo albaab leh oo ganacsi iyo xaafad isugu jiro dhulka ay la sineen waa arkaydin hadda say u yaalin hareerina waa u jeedin si alla say wax u yaalin waa u jeedin intaas dhulka ay la sineen waa gubeen waxa jiray nanku 2 kiiloomitir 3 kiiloomitir iswaar ka qabteen cidooyin cida buulaha deganaa waxaan ka soo tirinay 67 guri qoys oo aqal Soomaali cid meel deganaayeen oo haddii la isku daro noqon karto 100 iyo ninka la yiraahdo 53 ganacsi iyo hoos isugu dhax jiray intaas ay ninka la yiraahdo burbursheen saasay u taala idhiin waa u jeedaan waxaan rabnaa in laga soo gaaro waxyaabaha arxan darrada leh ee ay kooxda al-shabaab kula kacaan shacabka reer Hiiraan waxa ka mid ah in ay dileen arday dugsi quraan iyo macalinkoodii bal ila fiiri awoowahan waxa uu ka yiri falka caawandinimada leh oo ay kooxda al-shabaab u geysteen wiilka uu awoowaha u ahaa annaga wiilkeeyaha macallima oo 18 qofood dugsi u haayay ee dugsigu ugu yimideen birayeen afar moorana 5 moorana waa dhaceen oo xoolahana ka mid ah intaas ay ugu qasabtay inaan anoo 65 sano jira aan qolka qaadan ku shid mugo ugu horeeyay degmada iyo beesha muqkuriye qabsadeen meel ay la garaleeyahay ka intaan ka bilownay degmadii aan ugu soo galnay ama beeshii waa ka bixinay waxay degeen meel la yiraahdo xawo gadiid waa ka bixinay waxay degeen gumaro meel la yiraahdo waa ka bixinay waxay degeen meel qarfa la yiraahdo waa ka bixinay waxay degeen meel qarla la yiraahdo waa ka bixinay waxaan ay degeen gumare waa ka bixinay waxay degeen alxagarre waa ka bixinay waxay degeen mabaax
haddaan ka bixinay aadaya baalna waa ka bixinay meeshaasaan sii wadno. tani ayaa la sheegay inay ku qasabtay in beesha xawaadle ay yeeshaan kulan taasoo ay ku ballameen in laf kastoo ka mid ah beesha xawaadle ay ka soo qayb gasho dagaalka jihaadka ee ka dhanka kooxda al-shabaab reer hiiraan ma jirin waddo kale oo u furan oo aan ka ahayn in ay ka midoobaan kooxda al-shabaab kuwaasoo hooyooyinka hiiraan u saaray asaay carruur badanna ka dhigay agoomo. waxaan filayaa in ay muhiim tahay in la kala saaro macawisleyda hiiraan iyo macawisleyda beelaha kale. dhibaatooyinka loo geystay ayaa ka duwan kuwa gobollada kale inkastoo ay u noqotay dhiirigelin in gobollada kale ay la dagaalamaan kooxda argagixisada ee al-shabaab balse lama mid ahan dhacdooyinkii ka dhacay gobolka hiiraan waayo gobollada kale lagama gubin tuulooyin meherado ganacsi sumeynta ceelasha biyaha arday dugsi quraan in saf lagala maro xabad qaraxyadii beledweyne ee lagu eegtay waxgaradka reer hiiraan. sababtaasi awgeed reer hiiraan waxay wacad ku mareen inay ama ayaga ama al-shabaab tahay maadaama aysan jirin wada noolaasho ku dhex mari karta ayaga iyo kooxda argagixisada ee al-shabaab gobolka hiiraan. tani ayaa keentay in dagaalka macawisleyda ay hiiraan ka wadaan ay guulo wax ku oolah ka gaaraan maadaama aysan jirin wax siyaasad oo ku lifaaqsan dagaalkooda ka dhanka kooxda argagixisada ee al-shabaab. cali jeete oo ku sugan muqdisho ayaa faahfaahiyey sida qaabka uu u bilowday dagaalka ka dhanka argagixisada ee al-shabaab. dagaalku sidoo ku bilowdana may ahayn wax dawladda Soomaaliya iyo kulli inta laga fariistay qorshe loo suubiye muu ahayn. si ayaan ku bilownay adigu يعني سي ده اسخرحنا ونوان كان اتجاه سي اوني لولا دغالما marka maadaama dagaalka guul ka soo yideen in wajiga kale ee haray ilaa hadda meel uu soo gaaray waa in marka istiraatiijiyadii qaab iyo baleen iyo qorshe dagaal oo macal dawladii wada fadhiya in la suubiyo saa sheegtay dagaalku waxa tiri kuma bilaaban qorsho iyo qorshe loo dejiyo kuma bilaaban qorshe qaran kuma bilaaban qorshaha dagaalku ku bilowday aniga igama korreeyay marka hadduu qorshe qaran ku bilaaban dagaalkana lala galaayo urur wadanka oo dhan ku baahsan oo meelo badan dhowr sano xukuumaya ama heystay ku sugnaa dagaalkaasi marka hadduu qorshe lahayn si guulaha ma ku soo dhamaan karaa haya qorshe uu lahaa لكن أنا قرشي. هذاك هذا قرب هلين أو قرن. وي. أنا قرشي سيدي أنا قرش. gobolka hiiraan maanta boqolkiiba 90 waa uu ka madax bannaan yahay xukunka al-shabaab ma jiraan al-shabaab ka qaada canshuur ama caruurtooda u qorto ciidan ahaan taa waxa mahadeeda leh nabadoonnada iyo waxgaradka beesh oo u istaagay inay xoreeyaan deegaanadooda dadkooduna sharaf ku noolaadaan. fiidiyogan uguma talagelin inaan ku faaniyo reer hiiraan laakiin mar walba waxaanu isku daynaa in aan xaqiiqda ka sheegno wararkaan idin soo gudbino. haddii aad dood ka qabto fadlan noogu reeb fakarkaaga dhanka commentiga waxaan isku dayi doonaa inaan kaa qancino. midda kale sheergareeya barnaamijkeena haddii aad page-keena ku cusub tahay fadlan lagu soo biir adigoo isla markaana subscribe saarayo ku mahadsantihiin daawashadiina dhageystayaal. nabadeed.